laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo muddooyinkan dagaal ka socday u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo waliba sidoo kale dadka deegaanka hadda garabkayga waxaa taagan tuur oo kamid ah saraakiisha ciidamada hogaaminaysay bal dagaalka maanta sidoo u dhacay iyo guulaha kala gaadheen bal taliya iga warbix saaka 8 subaxnimo markay ahayd ayaa nimanka maleeshiyaadka ah sanam ay jiid hore weerar ku soo qaadeen ilaa iyo mar dhaweedna dagaalku waa soconayay ilaahay mahadi waa ka guuleysanay maalin iiga farxad badan ma jirto waxaan ku faraxsanahay riixitaanka aan riixnay nimankii cadowga ahaa guulaha aan ka gaadhnay gaadiid waa ka qabsannay meydkooda waa tarab xaqiiqiyan waa faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay oo kale maadaama aan maanta dagaalka socda haddaan dhintana aan ahay ehlu janno haddii lay dilana aan ehlu janno ahay dhimashadu waxba ma aha deegaanka ka muhiimsan marka waa faraxsanahay mar walba nimankaana waa ka guulaysanay si kastoo isugu dayaan inay deegaankan maaragtay ka dagaalamaanna mar walba jabku iyagoon buu gaadhayaa sababta waxaa weeye 4 ciidan baa iska horjeeda 2 ciidan waxaa weeye ciidanka xaqu-dararka iyo kuwa daalimiinta ah waa 2 ciidan geedka iyo buurta iyo booshana waa ciidan oo deegaankan baa iska leh ciidanka afraadna waxaa weeye waa asmaysan yihiin xabadda cirkaa loo ridaa waa ku dhacaysaa waxaa weeye intaa waa laabhinayaa deegaan aan lahayn bay ku dagaalamayaan xaqdarray ku dagaalamayaan xabadda cirkaa aan u ridnaana waa ku dhacaysaa xaqiiq waa ku dhacaysaa mana sii joogi doonaan haddii lahaydna insha allaahu ma sii joogi doonaan waa ognahay niyaddooda waa ognahay ciidanka laftiisa in xabad dhabarka lagaga hayo oo qofka dib noqdo in la tooganayo waa ognahay iyaga laftooda dhibaato badan baa dhexdooda ayaa ku jirta laakiin ama qori ku wad ama amar ku wado way dhammaanayaan waatay taliya dagaalkan wuxuu soconayay muddo gaaraysa 19 casho hadday 20 ba gaadhin intee bay ugu qaadan karayaa isleedihiin afjaristiisa dagaalkani horta deegaankan muddo dheer baa la haystay oo la joogay annagu ku talagalka iyagu insha Allah Ramadaan deegaanka xoreynaan ku soo noon jecelahay dilaan oo aanu maartay inta ka horeysana bisha soondheero cibaadaysiga inaan wadno hadii lahayd waxaan rabaa oo kale inaan yaro fariina halkan u mariyo dadka gobolada SSC ee jooga gobolada waqooyi nimankaas maalin ma xamilaan ay xanuunsadaan waxaan idin leeyahay waa la hubaa in la idinku leynayo guryaha la idinku soo galayo markaanu xanuujinno 2 shay bay sameeyaan madafiicda ay maatada la dhacayaan way ku garaacaan magaalada laascaanood iyagoo ciidankii iyo colkii arkaya waxa kale sameeyaan waxa weeye dadka gobolada jooga ee maaragtay kula nool way leynayaan waxaan idinku baaqayaa dadka gobolada SSC ka soo jeeda ee gobolada waqooyi jooga ee nimankaas ay degaan si degdeg ah wayna wala baxaan caruurahooda iyo